gudoomiye annaga waxaan keennay waxay tahay qodob dastuuriyahan keennay oo ilaa iyo 7 qodob oo dastuuriyahan soo qornay dastuurkuna hal qodob maaha keligiis keliya dastuurku waa isfasiraashadiisaba waa qodob fasiraayo waxaad ogtahay mudane gudoomiye 17 December 2017 in xarunta xisbiga aan aniga hogaaminayo wadajir saqra dhexe weerar lagu soo qaaday oo lagu dilay 5 wiil oo Soomaaliyeed oo ciidanka ilaalinaya ka mid ah meedkoodiina kabaha lagu aasay amarkaasna oo ka soo baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta u fadhiya in loo dhaariyo xildhibaannimo ilaa maalinta dhibkaas uu dhacay oo wiilashaas kabaha lagu aasay ka bacdi dalka waxaa ka dhacay dhibab kale fara badan oo ugu dambeysay kayskii gabadha Ikraan Tahliib ee nabadgelyada ahayd ilaa hadda raq iyo ruux meel lagu sheego la leeyahay intaasoo dambiye ah oo dalka ka dhacay oo dhibaatadaas la geystay waxay dhaceen xilliga uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dalka ka ahaa dastuurkeena qodobadiisa aan soo sheegay 15aad ilaa ay qodobka 38aad waxay ka hadlayaan xuquuqda muwaadinka iyo in la ilaaliyo amnigiisa badqabkiisa noloshiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa in la ilaaliyo intaasoo dhan amarka madaxweynihii hore meeshaan fadhiyaa lagu xadgudbay intaasoo dad ah oo anigu aanu ahay victimkii lagu xadgudbay waxaa dhacday marka Soomaalida dhaqan ay leedahay xeer ay leedahay ay ku wada hadasho dhaqankii iyo xeerkiina soo marin dad badan oo kale oo dhibka qayb ka ahaa oo ugu dambeeyay taliisi nabadgelyada asaga taliisi nabadgelyada oo ugu dambeeyay si Soomaalida intii igu yimid ayuu waxa uu weydiistay in aan cafiyo ra'iisul wasaarihiisa wuxuu weydiistay in aan cafiyo taliyii operationka hogaaminaya habka baarlamaanka fadhiya Umar Saadir John dad eelkiisa u yimid in aan cafiyo warsaday ninka kaliya ee operationka ku jiray ee mas'uuliyadda qaadaya amarkana soo dhiibay oo kulligood markaa warsaday hal u warsaday si uu dhaceen kulligood waxay isku raaceen amarka ninka soo bixiyay inuu yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa hadda mid dhaqan Soomaaliyeed kama hayo oo sidii Soomaali dhaqankeeda lagu yaqaan oo galiinka leh oo dhaqanka eedo xeerka eedo kama hayo mid dawladeedna kama hayo oo urdaa meel oo ku qiray dambigii oo geystay iyo faldambiyadii oo geystana ma hayo haddii marka dadka Soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin waa ogahay dadku waa qabaa'il qof taageersan yahay ninkii dambi geysta hal iska geeyo saaka waxaan dhageysanayay gudoomiye marka hore waxaan ka xumaa horta garaa la xildhibaan waxaan ka tacsiyaynayaa sida gudoomiyaha ku raacsanahay dhibkii hotel xayaat ka dhacay iyo dadkeennii masaakiinta meesha ugu xasuuqay saaka nin argagixisaha ka hadlay idaacadda in Abu Muscab la yiraahdo maleynaya wuxuu ku faantamayay in 40 qof oo Soomaali dilay 40 qof oo Soomaali inuu dilo ku faanay saaki oo u celebrate gareynay oo dhahay wax xasuuqnay waxaa laga yaabaa kuwa asaga lamid ah intii iska yimaadaan xil dalka qabta ee dhacda hadeertaan haddii maalin kasta marka ninkii mansab dawladeed haaya oo dadka xasuuqo kii argagixisaa dadka xasuuqo baarlamaanka lagu soo dhaweeyo ama xil dawladeed loo dhiibo annagana aan ka aamusno see dalkan ku hagaagi karaa ii sheegay dalkan si uu ku hagaagi kara male dalkan wuxuu u baahan yahay la xisaabtamo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin Soomaaliyeed waa nin isku deegaanahay waa nin isku kuristu ka nimid ama oo dhaqankii xeerkii Soomaali soo maraa lagu yaqaanay oo ii soo hoydaa dhibaato ii geystay ama waa inkii sharciga laga oofiyaa doodeed intaas ay taala qodobada dastuurkaana gudoomiye dastuurka waa ku takhasusay waana aqaana waana iska soo akhriyay ninkan human rights violation ku haystaan asagana mas'uuliyadda qaaday saas daraadeed waxaan rabaa for the record waxaan meesha u imid shaqo culus aan qaran karo hayaan waxaan meesha u imid for the record dadka Soomaaliyeed jiilan dhageyso doon taariikhda waa haraysa qofkii ka marqaati kacay qofka ka marqaati kacay waa haraysa record way waxaan ku hadlayno for the record aan rabaa in kuwa hadda xukunka qabsaday ay falku sameeyo kala sameeyeen oo qof idinka ilmada ay gurigiisa u dhicin hadda xukunku waa la wareegay bari marra inay dad guri u dhacaan marra inay qof gurigiisa ku weeraraan marra qof mudaarada inay weeraraan bari waa mudaarada doontii adigu ka cabanaa madaxweynaha xagga joog in jidka lagu cabaday marra bari gobol u safri doontii diyaaradda shidaalka laga dhameeyo in marra bari dowlad goboleeda xasha u dhici doonaa ha laga jaro hal cuno qabateeyo ina diyaarad aadi ila dhaha marra
I'm setting this one in ay record noqoto kuwa xukun qabsaday kuwa qabsan doona kuwa imaan doona inay record noqotaan rabnaa haddaad ogolaataan xildhibaano iyo haddaad ogolaanin this you conscious this you damiirkaaga laakiin cabdiraxmaan cashuur baa la yidhahdaa waxaan u hadlayo waa xaq waxaan record garaynayo waa xaq waxaan sad garaynayo waa record oo mid xukun haysta hadda mid soo maray iyo mid imaan doonaba inuu si bacad gudbinaa rabaa aniga taas waa guddoomiye mooshinkeena waa saxiix ninkan ilaa uu ka garbaxo waxaan ku haysano mooshinkeena inuu socdaan aaminsana waana mahadsantihi